Somaliland horay buu u gatay oo saxiixiisi baa la hayaa ma garan laakiin inta way ka dagay maxaan ku raahdaa yuhuudda ma garan xasan sheekh gardarro garab og weey inuu meesha ku fadhiyo maxaan ku raahdaa oo nuka hawiya oo nuka hiraba madaxweyne qabiil ku faanaya taariikhda lagu ma hayo gaal iyo muslim midna ma garan markaati ma ka tahay ay ma midile yaa ka weerar adiga hebel baa weeraray ama shakhsi baa sheeg waa weeraray shakhsi hebel baa weeraray ama hebel baa weeraray miyaa leeyahay dhul buu rabay inuu ka gato aniga marka ka warkiisa iga daayay saddex qodob baan rabaa inaan hadda ka hadlo ayuu cadow soo weeraray dalkii in maxaan ku raahdaa gudihii la weeraro oo dad la barakiciyo degmo la qabsadana maxaan ku raahdaa dowladnimo ma aha ma garan ciidanka xoogga ama arrintaas gedood ha ka sameeyeeno ama hubkaa dhigeeno wax ciidanimo loogu xisaabtami karo waxa kan ciidanka xoogga intaasaan leeyahay haddaad maxaan ku raahdaa sidaas ku sii dhowrataan oo after week waxaa sheekh maxamuud sii jooga Soomaali weynay Soomaaliya talay go'aan bay qadarood go'aan buu qaadanaya qabso wuxuu ku jooga waa baabi'in barakicin iyo dalgadasho ma garan dowladda aan dalgadanin oo shacab barakicin baa la inqilaabaya oo laga qabsanaya wadankii ma garan laga kicinaya markii farmaajo daarooda tahay marixaana tahay filada ka soo bax markii la farmaajo ma hal buu soo gat hadda kan saddex bilood baa u hartay wax doorasho iyo wax maxaan ku raadaa isku duubnaan ah iyo wax maxaan ku raadaa Soomaaliya ma jireen muxuu doonayaa haddii xasan sheekh maxamuud uu sidaas wax ku wada Soomaaliya xamar joogto ay raali ka noqoto Jubbaland iyo Puntland baa u diraya ma garatay inaad gaarsiisana waan ka codsanayaa ma garat haddii xasan sheekh maxamuud uu hargeysa gatay oo maanta ay yuhuud maxaan ku dhex gaardinayso asagana uu degmooyinkii weerarahayo wax lala og yahay weeye inay go'aan baan u baaqayaa ma garat saxiix Bukhari Muslim laga soo wariyay weey sababta waxa weey hadda ma sugeyn haduu Muqdisho dhan gatay inuu maxaan ku raahdaa dhulkii daarood intuu u gudbo asagoo madaxweyne aan ahayn inuu gadgato anaga ma doonayn midaan la weerarahayo oo yuhuudda ku dhex gaardinayso oo uu indhaha ka dhowrayso dhul Soomaaliyeed ma aha ninka Soomaalinimo ma jeedeen waana ku dhawahay Ilaahay ha idin xifdiyo hadaan u gudbo xaaladda guud Soomaaliya maanta cid mas'uul ah oo sheegan karto wasiir hebel wasiirka warfaafinta wasiirka gaashaandhigga wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda cid Soomaali ah oo federaal ah oo maanta mas'uuliyad ay haysan karto ma jirto haday xisoonayaan ma garan xasan sheekh maxamuud waxa Ilaahay igu og yahay hal buul hoos qof gaar u leeyahay oo dhisay ka tagayeen ma garan maxay tahay marka sababta waxa weeye Soomaali farato oo aqli ahayn oo wax fahmayn oo wadaniyad ku jirin oo Soomaalinimo rabin buu oo meel ku aruursada ma garan haye Somaliland horay buu u gatay oo saxiixiisi baa la hayaa ma garan oo xasan sheekh maxamuud ayaa Somaliland gatay saxiixiisi baa la hayaabo maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa laba qodob booqashadiisi koobaad markuu imaanaadka tagay oo madaxa laga burburiyay waa kii inta duuray ka dagay maxaan ku raahdaa yuhuudda ma garan markaati ma ka tahay ay ma midile waa sida aad adiga sheegayso haye waa isbari yeelaysaa inuu ka dagay cadeynteedii oo video oo duuban baa la hayaa ma garan qodobka labaad waxa farmaajo inuu cayriyay imaanaad ma la socota haye xasan sheekh maxamuud inuu soo celiyay ma la socota markuu farmaajo xilka ka dagay haye cadayn horta saxiixa laakiin waxyaabaha maxaan ku raahdaa political kon wax ku tilmaamayo waa sida ma garan waa gartay waxa cadayn saddexaad ah shalay inuu maxaan ku raahdaa inuu weerar shalay inuu wasiirka arrimaha dibadda ka soo degay Somaliland ma garan oo yuhuudda nin dalkii la soo weeraray dhowrahayo oo dal uu gatar Muqdisho dal uu gatar ka doonayo weerarayo oo madaxweynihii jamhuuriyadda ayaad ku eedeynaysaa in uu degmada Daynile ee magaalada Muqdisho shacabkii deganaa uu weeraray yaa ka weeraray adiga hebel baa weeraray ama shakhsi baa sheeg waa weeraray shakhsi hebel baa weeraray ama hebel baa weeraray miyaa leeyahay sidee buu ku weeraray marka bal inoo caday oo faahfaahin inaga sii dhul buu rabay inuu ka gato aniga marka ka warkiisa iga daayay saddex qodob baan rabaa inaan hadda ka hadlo maxay tahay marka saddexda qodob ee aad ka hadleedo ciidanka xoogga waa qodob beelaha daaroodba waa qodob Soomaali weynna waa qodob ciidanka xoogga waxaan leeyahay wixii la idin qortay oo qoriga ku siiyay oo la idin tababaray oo juhdiga la idin geliyay inaad ciidda difaacdaan bay ahayd inaad maxaan ku raahdaa gudaha ku soo noqotaan waa xaaraane maxaan ku raahdaa amarkaas qaadanina maxaad ka wadaa inaad gudaha ku soo noqotaan xoogga dalka shuqulba kuma leh gudaha wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga gudaha shuqul kuma leh arrimaha dibadda weeye haye in marka ciidanka xoogga difaaca dalka loo
carbiyey inay maxaan ku rahdaa muqdisho inta weeraraan degmo muqdisho ka mid a dad ku laayaan wax aan garanaya maaha aniga ma garan waan gartay ayadoo cadow soo weeraray dalkii in maxaan ku rahdaa gudihii la weeraro oo dad la barakiciyo degmo la qabsadana maxaan ku rahdaa dowladnimo maaha ma garan ciidanka xoogga ama arrintaas gedood ha ka sameeyeeno ama hubkaa dhigeeno wax ciidannimo loogu xisaabtami karo waxa kan ciidanka xoogga intaasaan leeyahay soomaali weyn waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud wuxuu samaynaya waad aragtaan sadar muuqda su-aal ka dhan waa markhaati madoonto haddaan kelmad beena sheega iga qabo haddaad maxaan ku rahdaa sidaas ku sii dhowrataan oo aftar wiig uu xasan sheekh maxamuud sii jooga soomaali weynay soomaaliya talay go-aan bay qadaarood go-aan buu qaadanhayaa qabso maxay tahay marka go-aanka aad qaadanaysaan haddii madaxweynaha waqtigiisii rasmiga ahaa uu ku joogo welina ay u dhiman yihiin dhowr bilood wuxuu ku jooga waa baabi'in barakicin iyo dalgadasho ma garad haye dowlada aan dalgadanin oo shacab barakicinin baa la inqilaabhayaa oo laga qabsanhayaa wadankii ma garad laga kicinhayaa haye markii farmaajo daaroodaa tahay marixaanaa tahay filada ka soo baxa markii la farmaajo ma hal buus uu gartay farmaajo xilligaa waqtigiisa waa uu dhammaaday muddo kordhin ayuuna samaystay soo maaha hadda kan 3 bilood baa u hartay haye wax doorashaa iyo wax maxaan ku rahaa isku duubnaan ah iyo wax maxaan ku rahaa isu imaadana ma jireen muxuu doonayaa haye xilligii farmaajo xilligan ma jirtay isku duwanaanshiyo iyo isku aadis doorasho haddii xasan sheekh maxamuud uu sidaas uu wax ku wada Soomaalida xamar joogto ay raalli ka noqoto Jubbaland iyo Puntland baa u dirhayaa ma garatay inaad gaashiisana waan ka codsanayaa ma garat maxay tahay marka baaqa aad Jubbaland iyo Puntland oo ka gadoodsan dawladda dhexe aad u dirayso baaqa u dirhayo waxa weeye haddii xasan sheekh maxamuud uu hargeysa gatay oo maanta ay yahuud maxaan ku dhex gaardinayso asagana uu degmooyinkii weerarahayo wax lala og yahay weeye inay go-aan baan ugu baaqahayaa ma garan oo maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaad ugu baaqaysaa in dawladda dhexe ay ka go-aan saxiix Bukhari iyo Muslim laga soo wariyay weeye sababtu maxay tahay marka sababta waxa weeye hadda ma suweyn hadduu muqdisho dhan gatay inuu maxaan ku rahdaa dhulkii daarood intuu u gudbo asagoo madaxweyne aan ahayn inuu gadgato annaga ma doonayno deegaanada maamulada Jubbaland iyo Puntland beesha aad sheegayso kaliya malahan waa dhul Soomaaliyeed marka in beel gooniya aad u saarto soo lagama qurux badno midaan la weerarahayo oo yahuudda ku dhex gaardinayso oo uu indhaha ka dhowrayso dhul Soomaaliyeed ma aha ninkaas Soomaalinimo uma jeedee maxaan ku rahdaa hadday Soomaalida xamar joogto iska qaban weydo oo nimankii baabiin qaran ahaa maxaan ku rahdaa ay tilaabo qaadi waayaan xasan sheekh maxamuud iyo muqdisho waa isu daynaynaa annaga waa go-aynaa daarood haddaan nahay madasha samata bixinta waxaad ku hadaaqaysaa in baabi'in qaran ay yihiin adigana haddaad ka shaqaynaysaa baabi'in qaran soo hadalladaada ma isburinayaan marka may maqashaa waa ku maqlaa madasha qaranka kuma dhihin maxaan ku rahdaa kuwii baabi'inta qaran ahaa oo farmaajo kusoo duulay baa sheegaya iyagoo ciidan ah kuwaan ayagu tabar ma laha oo gacanta u taagan oo maxaan ku rahdaa afmaal weeye oo qofka waa ku xanaaqsanay waa ku leeynaa markay yiraahdaan waxoogaa uu tuuraya waa kala tagayaan ma garan kuwii dalfiishka dahsoon u soo fariisay madaxtooyada oo badbaado qaran weeye lalahaa weeye waxaan kuu sheegaya baabiin qaran baan aniga u aqaanaaye walaalle allaha ku sharfo wallaahi billaahi tallaahi waa ku dhaaranhayaa go-aankaas waa saxiix weeye hadda odayaal baa ila fadhiyo go-aankaas waa saxiix haddii arrintaas wax laga qaban waayo oo xasan sheekh maxamuud doorkii ka horreeyay hadda ka hadlayay imaanaadkana gubasha u laaf oo xafiisyadooda xil oo isdhaafi meesha la yidhaahdo ciidamana sanaa ka dejiyo maxaan ku rahdaa ha ku duulaya samaroon ha tageenaan iri ma garan dad calankii Soomaalida huwan oo reer samaroon ah oo maxaan ku rahdaa Soomaaliya nahayda yuhuudooni maynala inay yuhuud maanta ku duusho maxay ka dhigan tahay marka waxay ka dhigan tahay dawlad la'aan adeerow arrintaas gaarsii xasan sheekh maxamuud oo gaarsii maxaan ku rahdaa maamulada daaro Jubbaland iyo Puntland iyo waqooyi bari gaarsii waa wallahi anagu xuduud baan degannahay haddii maxaan ku arrintaas tilaabacada muuqata xasan sheekh maxamuud uu ka qaadi waayo oo uu saylac ciidamo geyn waayo oo uu maxaan ku rahdaa ku duuli waayo hargeyso iyo gaalada fafadhida uu ku duuli waayo maanta garabnaan ma hayso waxa u taagan maxaan ku rahdaa qatar waxa u taagan turki waxa u taagan sacuudi
waxa uu taagan Masar garab la'aan ma hayso waa dhul gatay asaga bayliyay dhulka asaga gacanta ka bixiyay maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aad ugu baaqday in ay Soomaaliya inteeda kale ay ka go'aan mid kamid ah oo ah maamulka Puntland shalay waxa uu ku jiray qariirada maamulka Somaliland uu ku wareejiyay Yahuuda maxaa marka taasi uga hadli laadeen siyaasiyiinta ka soo jeeda dadka deega Puntland iyo ma maqashaa waa ku maqlaa joogitaankoodan ba ka xanaaqsanay xamar ba eber laga dhigay waqooyina waa la gatay maxaa ku raada Puntland aan ka hadlaya maxaa Sheekh Haydiin ma waxa gatamiyaan maxaa ku raada oo aamusa soo marka waad ku faraxsantiin in qariiradii maamulka Somaliland uu wareejiyay aad ku jirtaan oo ilaa xuduudda Somaliland ay tahay Garowe iyo Boosaaso wallahi baan ku dhaartay in xamar iyo maxaa ku xasan Sheekh isaga tagaya hadii aad wax ka qaban arinta beelweynta hawiye oo xasan Sheekh dara taagan oo guriga uu gato oo maxaa ku raada $7 ka siinayo quriya qaaya haday wax ka qaban waayaan guul darada maanta xamar ay ku jirto way ku baaqi ku noqonaysaa anagana waa ka guureynaa oo halkeen u guureysaan marka annaga maxaa ku raada afar dawladood baan xuduud leenahay ma garan Kenya xuduud leenahay Ethiopia xuduud leenahay Eritrea xuduud leenahay Djibouti xuduud leenahay ma meel aan galaan weyne annaga adinka maxaa ku raada bad afkeed ku oodan markii wax la qaban waayo go'aan ka meel buu loo yaalaa markii wax la qaban waayaan shaacinayna hadii la horay waxaad u sheegtay in aad ku kala biireysaan Ethiopia iyo Kenya bal maxaa ka jira warka ma maqashaa waa ku maqlaa doonaysa hadaad weyda saan ku hurayn baa la yeelaa ma garan xasan Sheekh gardarro garab og weey inuu meesha ku fadhiyo maxaan ku raada oo nuka hawiya oo nuka hiraaba madaxweyne qabiil ku faanaya taariikhda lagu ma hayo gaal iyo muslim midna ma garan dawlad naga weyn oo naga xoog badan oo intaas oo diyaaradood intaas oo taangi intaas oo maxaan ku raada bayrood kun diyaaradood oo kun diyaarado dagaal ah iyo kun taangi dawladaha Mareykanka uu dhakada uga soo dhacay buu maxaan ku qabsaday ma garan oo uu xiliyaa ma garan intaan Mareykanka ka hadlayno ninka musuqmaasuq uu galay buug madowga ku qoran dalkii waa dumiyay Soomaaliya asaga kala gooyo meeshaas uu ka tagay kaana naga qabantaan leenahay ku sartay habeenimo asaga iyo reer gurguurtoo dhan la xaabinaya ma garan waa ka xishoonayna anagu gaal raacmanin ma garan adeer marka meeshaan wuustaan dhigli Soomaaliya xasan Sheekh Maxamuud intii jooga dawladnimadeeda anaga waa ka quusanna ma garan ugu dambeyntii maxay tahay marka baaqa aad direyso ee aad u direyso shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed dalkii waa la kala gooyay waa la kala gatay dal ma yaalee fariiqa ka kacaan leh oo dalka la difaaco dalka la adqabto haye xasan Sheekh Maxamuud baaqa aan u dirayana waxa weeye 48 saac haduu imaanaadka maxaa ku xiriirkiisa tari waayo oo xafiiskooda xil waayo oo wadanka كساري واي صلى الله وبارك إمانات يمودية سجى شيخان آد يا آد أيضا ما تنتهي نبضوني أدام السلام عليكم